الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaynu ka hadlaynaa fadliga bisha Ramadaan sakaatul fitriga la bixiyo. Waa maxay sakaatul fitriga? Waa sadaqo la bixiyo bisha Ramadaan dhamaadkeeda ilaa bisha Ramadaan la bixin kara, laakiin waxa qaar badan la bixiyo maalimaha ugu dambeeya iyo wali maalinka qoraxda ee soo baxda ciida ah inta aan salaada la tukanin. maxay waajibnimadeeda inay waajib tahay? waxaa waajib cadeynaya rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiis oo ka warana asxaab badan ay ka wariyeen cadeynaya inuu waajib yahay in sakaatul fitriga waajib tahay. waxaa la lahaa sakaatul fitriga maxaa loo soo waajibiyey, goormeena waajib laga dhigay? sakaatul fitriga waxaa la waajibiyey markii bisha Ramadaan la waajib yeelay oo sanadkii labaad oo hijriga ah, markaas ayadana waajib laga dhigay oo waxaa waajib looga dhigay in qofka islaamka ah ka tirtirto dembiyadii ka dhaca markuu soonaa ee yaryaraa inay ka tirtirto. sababta qofka bini'aadanka dembiga ka dhici kara mar walbo iyadoo bisha Ramadaan dembi dhaaf ay tahay oo shayaadiintii oo dhan laga wada xiray oo lagu talagalay cibaado ah oo dembiyada iska ilaalin, laakiin bini'aadana tahay dembiyadii ka dhacay oo yaraa inay ka tirtirto ee loogu talagalay. waxay kaleeto u tahay maxaa dadka masaakiintana maalinka ciida iyo baahida iyo tugsiga ee banaanka u soo bixi lahaayeen inay dadkoo dhan wada farxaan ee loogu talagalay sakaatul fitriga maalinkaas, si adigana aan naftaada uga daayirisid wixii dembi kaa dhacay, dadka masaakiintana aad uga bixisid maalinkaas gacantaaga iyo inay wax qaataan meelaha taagnaadaan. waxay ugu khayr badan tahay in la bixiyo maalinka qoraxda markay soo baxdo. nabiga sallallahu alayhi wasallam xilligaas ayuu bixin jiray. sababta loo bixinayo xilligaasna waxaa la rabaa dadka masaakiinta maalinkaas markii la siiyo subax raashin ee gurigooda subax ku karsadaan maalinkaas oo dhan cuni karaan, waxay dareemayaan inaysan banaanka aadin, farxadda ciida inay dadka la qaataan, inaysan gacmaha horsanin ayay dareemayaan. waxaa la siiya dadka masaakiinta fuqarada ah, lama siiyo maxaa la qof haysto wax maanta uu cuno, qof aan haysan wuxuu cuno maalinkaas ayaa la siiyaa sakaatul fitriga. waa wax wanaagsan la bixiyo xilliga bisha Ramadaan. waxay ugu qarban 3 beri ugu dambeyso iyo waliba maalinka ciida intaan salaada ciid la tukanin. laakiin salaada ciid la tugto waxay ka noqonaysaa sadaqa caadi ka noqonaysaa sakaatul fitriga booskeeda kuma galayso. laakiin waxaa wanaagsan in la bixiyo xilliga salaada ka hor iyo 2 beri ama 3 beri ugu dambeyso. haddana waxaa la waqtiga uu sii dhamaanaya, waxaa isku dardaarmayna ay ka wada bixisaan sakaatul fitriga. maxaa laga bixinayaa sakaatul fitriga? raashin qof walba meeshuu joogo raashinka laga isticmaalo ayaa la bixinayaa. waxaa lagu qiyaasaa, culimada ay ku qiyaasaan 2 kiilo iyo bar ilaa 3 kiilo inta u dhaxayso ay ku qiyaasaan in la bixiyo waxa raashinka magaalada laga isticmaalo. lacag ma la bixin karaa? dadka meelaha dadka masaakiinta ay joogaan lacag ma bixin karaan, waxay bixinayaan raashin. laakiin dadka dibadaha joogo daday raashin siiyaan ma lahan. marka waxaa wanaagsan inay lacag ahaan u diraan dadka meelaha joogaan sida Soomaaliya oo kale dadka joogo ama Afrikaas oo kale qaxootiga joogo inay u diraan lacag ahaan, marka kadib raashin loogu iibiyo, raashinkaas loo qaybiyo. qof ugu kalsoon tahay ka bixinaya ogtahay u dir lacagta, inta ka bixi u dir. culimadu waxay ku qiyaastaan Mareykanka ay joognaa, Mareykanka waxay ku qiyaasaan $10 ay qofka ku qiyaasaan. marka $10 qofkii familka intuu ka kooban yahay $10 xisaabiyo qofka, kadibna shirkadda ha dhigo qofka ugu kalsoon yahay u diro, kadib saas saga bixiyo sakaatul fitrigiisa. waxay ku wanaagsan tahay wali waqtiyadan hadartan la joogo xilliga ugu fiican hadda la bixin karo waa iska hormari inta inaan kaa dhicin ciida la gaarin ka hor si lagaaga bixiyo. waa wax wanaagsan qof walbo islaamna u baahan inuu mar walba bixiyo. marka waxaa isku dardaarmayna mar walba inaan wanaagga iyo khayrka badino, maadaama bisha Ramadaan naga sii dhamaanayso. maxaa naga dhamaaday kaliya bishii soonka naga dhamaaday, nagama dhamaanin cibaadadii, nagama dhamaanin inaad soontid, nagama dhamaanin salaatuleylka inaad tukatid, nagama dhamaanin inaad mar walba wanaagii samaysid, inaad sadaqa la baxdo kaama dhamaanin. sanadkoo dhan la bixi kartaa. marka mar inaad bishan kasoo faa'iida cabsi iyo alla ka cabsi badan iyo salaatuleyl badan inaad tukatid, inaad ka faa'iida laga rabaa. inaadan ka faa'iidin kaliya baahi kaliya inaad soo baratay si loo baahnaado, aana markay bisha dhamaatana meeshii aad ka bilaawid aad ku noqotid, meeshii aad kasoo bilaawid dembiga inaad ku noqdo lama baahna. inaad sahayda kasoo qaadatid bishan sanadkoo dhan ku mood ayaa loogu talagalay. ilaahay naga dhigo kuwa laga aqbalo bishooda Ramadaan iyo sakaatul fitrigooda laga aqbalo, kuwa dembigooda mar walba dhaaf ilaahay naga dhigo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa anigoo Axmed ah, halkaa naga daawanaysa Soomaali official. mar walba la wadaag asxaabtaada, like iyo subscribe ka noo saar. aad u mahadsantahay, la wadaag asxaabtaada mar walba. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.